waxaa la sheegaa nin baa hadda ka hor wuxuu u yimid ibnu siriin, markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku riyooday anigoo dhabta ku haysto ilmo yar oo qaylinaayo. markaasuu wuxuu yidhi ittaqi illaah walaa tadrib bilcuud, war nin yahow ilaahay ka cabso, ha ku garaacin ushaan cuudka aad wax ku garaacaysid jooji. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. meel walbo aad iga daawanayso iyo si walbo aad ii daawanayso, meel walbo aad joogtid waxay ku tahay wacan oo wanaagsan. halka aad iga daawanayso waa channelka Macalin Muuse ee YouTube-ka Macalin Muuse Official Channel. aniguna waa Macalin Muuse. haddii muuqaalkeena markii kugu horeysay oo kusoo gaaray, fadlan channelka ku xirnow oo gambaleelka furo, subscribe-tana ha bakhiilin, maxaa yeelay channelka waxaan kusoo gudbinaa wax walbo bulshada waxtar u ah ayaynu kusoo gudbinaa insha Allah. maanta waa maalin kale, waxaan rajaynayaa anigoo caafimaad qaba sidaan idinku imid aan idin soo hor fadhiisay mar kale inaad idinkana ii daawanaysaan idinka oo caafimaad qabo. halkan waxaan uga duceynayaa dhammaan inta xanuunsan oo dhan, inta kurbeysan oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala kurbada ha ka feedo, inta culayska saaran yahayn culayska Allah ka qaado, inta guurka ka xumaadana ilaahay guurka uu hagaajiyo, inta ubad doonaysa ubad la-aanta ahne ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay ku arsaaqo ubad saalix ah oo baari ah oo ah kuwii ay ku harsan lahaayeen kuna nasan lahaayeen indhahooda. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago, dabcan channelkan waxaan ugu talagalnay keliya waxa weeyaan, inta badan waxaan diiradda ama xoogga aan saarnaa si dadka bulshada ay aad ay uga faa'iidaystaan tafsiirka riyooyinka. marka maanta waxaan rabaa in aan mawduuca aan diiradda saari doono uu noqdo marka dadka noocyadooda kala duwan. markaad nin ku riyooto ama duq aad ku riyooto ama ilmo yar aad ku riyooto ama qof haween ah aad ku riyooto, dadku way isku riyoodaan, yani calaa man tacrif waman lam tacrif, yani qofkaad taqaanid iyo qofkaadan aqooninbo habeenkii dadku way iskuwa is ararkaan. qof baa ii imaadayaan ku riyooday, qof baa odayaa ii imaaday, muxuu ahaa, maxay ka tarjumaysaa, nin baa ii soo galay, islaan madow waa ii timid, islaan cadaa ii timid, ma garanayo waxay iga rabtay. dabcan dadku way isku riyoodaan. maanta cashirkan waxaan ku baranaynaa dadka iyo noocyadooda iyo marka riyo lagu arko. dabcan waxaan kasoo guurinaa annaga inta badan tafsiirkeena tafsiirka loo nisbeeyo maxamed ibnu siriin al-ansaari raximahullah. wuxuu leeyahay marka maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahay qofka haddii uu ku riyoodo qof uu yaqaano, nin ha ahaado, qof haween ha ahaato, qof uu yaqaano haddii uu ku riyoodo, qofkaasi isagaa waxbuu kaa doonayaa. maxaa riyada keenay, maxaa sababta u yimid maxay tahay? waxbuu kaa doonayaa, waxbuu rabaa inuu kaa qaato. yaa raba inuu wax kaa qaato? qofkaasi kaba soo qaadbo ma joogo, agtaada ma joogo, laakiin waa taqaanaa qof isaga ku magac ah, qof isaga wejigiisoo kale leh, qof dhiiggiisa oo balaas haddii uu yahay kan kalena oo balaas uu yahay, qof noocaasoo kalea kuu imaanayo, qofkaasa wax kaa qaadanayo. muhiim maaha inaad isagii aad ku riyootay shakhsiyan nafsuhu inuu isagii kuu yimaado maaha, laakiin waxani waa riyo. riyaduna tacbiir iyo tafsiir ay leedahay. haddii qof wax kaala dhex maraan aad isleedahay macquul ma ahan be, qofkaan markii ugu dambeysay maraykanku jooga adna soomaaliya joogta, maxaa isku keenayo? for example, gabadha waxay ku riyootay iyada oo nin guursaday, ninkana waxay ku og tahay ama wuu dhintay kasoo qaad, ama wuu fog yahay meel aysan joogin uu joogaa aad u fog. ninkaasi nin u eg, shabihiisa ah, ku magac ah, ku dabeecad ah, ku dhiig ah ayay ku furmaysaa riyada. inaa fahantiina rajaynaya. qodobkaasi waa muhiim, aad buu muhiim u yahay, wayna nagu soo noqotaa, aad uu muhiim u yahay. hadba waxay ku xiran tahay marka qofkani waxa uu kaa qaadanayo. hadduu matalan uu kaa qaato kale shaarkaaga ama qamiiskaaga ama dharka aad xiran tahay uu kaa qaato, qofkaasi isaga waxa waaye wuxuu kaa qaadanayaa mansabkaaga. gabadha haddii ay ku riyooto gabar ay taqaano oo dharkeeda ka qaadanayso, ninkeeda kala wareegaysaa, xaajigeeda waa. haddii lacal xarig ka waran, xarig iyadoo kaa qaadanaysa ama isagoo kaa qaadanaya ku dhigto, ballanaa kala gelaysiin, waa ballan, cahdi waaye, xarigu waa cahdi waaye. fahmaysaa? waxaa kuu soo haray marka ninka odayga ah, ninka waayeelka ah ee odayga ah, marka aad ku riyooto waa awowahaaga, adiga awowgaaga waaye. inta badan awowa lagu macneeyaa awowayaashaadii mid ka mid ah, ama aabbaha uu dhalay, ama hooyadaa uu dhalay, ama aabbaha aabihiisuu dhalay,
ama awoogaagii shanaad waaye saddexaad waaye almuhim awoogaa waaye nin oday ahoo waayeel haddaa ku riyooto adi kaama foga awownimo kama dheera awoogaaga waaye waxay ku xiran tahay marka haddii aad ku aragto daciifnimo awoogaasi waa tabar daran yahay haddaad ku aragto isagoo xoogan oo qawi haddii aad ku aragtani awoogaasi waxa waye quwaddiisa iyo xooggiisa waaye haddii adiga oo dhalinyaro ah wiil yaroo dhalinyaro ahaa tahay adoo duqoobi haddaa aragta ka waran duqaaba isku bedasheebo dhalinyaraa tahay sida caadigaa dhalinyaraa tahay laakiin waxaad ku riyootay adoo waayeel ah oo timihii ku caddaadeen garkii ku caddaaday aa ku riyootay macnaheedu waxaa waaye cilmi iyo aqoon ninguu kaa weyn maxaa layidhi garasho kaa weyn cilmi iyo aqoon waaye adoo dhalinyaro ah adigoo timahaagu caddaaday garkaagu caddaaday haddaa ku riyootid waa cilmi aqoon waaye aadaab waaye ixtiraam waaye ma fahmaysaa saas waaye adiga oo nin oday raacaya haddii aad ku riyootane waxaad raacaysaa khayr iyo wanaag maxaa yeelay inta badan odayaashu kor waayeel waxaa layidhi waa wada indho marka khayr adigoo raacayo oo kale waaye wiilka dhalinyarada ah haddii lagu riyoodo qof dhalinyaro ah waa cadow qofka ku riyooda haddii uu yahay nin waa cadowga waxa weeyaan wiilka dhalinyarada aad ku riyoonayso waa cadowgaaga gabar haddii ay ku riyootana wiil dhalinyaro ahne waa cadowgeeda gabar cadowgeeda ah haddii uu yahay marka wiilkan dhalinyarada ah nin cad haddii uu yahay oo carab ah waa cadow isqarinaya waaye haddii uu yahay ninkan dhalinyarada ah aad ku riyootay mid madowne waa cadow laakiin hodan ahoo lacag lahoo maalqabeen ahoo taajir ah waaye marka nin yar oo dhalinyaraha haddii aad ku riyooto uu kaa hor yimaado qofka riyadan arkay wiil haddii uu yahayna waa wiil cadowgiisa ah qofka riyada arkay gabar haddii ay tahayna waa gabar cadowgeeda ah wahaakada haddii uu nin dhalinyaro ahoo laakiin dhisan oo sigisbaag laho xooggiisa murqihiisa dhisan haddii uu yahay cadow xoogan waaye wiil dhalinyaro ahoo kusoo raacaya haddii aad ku riyootane cadow kaa guuleysanaya waaye marka dhalinyarada iyadana macnaheedu waxay noqonaysaa saasay noqonaysaa gabar haddii aad ku riyooto gabar muslimad ah oo lebisan oo taagan waxaa kusoo gaarayo khabar saar war farxad lahaa kusoo gaarayo meel aadan filanayn inuu kaa soo gaaraya laakiin gabadhu haddii ay gaal tahay aanay muslim ahayn khabarka wuu fiican yahay laakiin mid xunaa daba socdo khabar fiican oo isla markiiba uu ku dheehan yahay mid xun waaye haddii gabadha aa ku riyooto iyadoo timaheeda feedan oo qaawan oo goono gaaban wadato sidii gaalada ay u lebisanayso gabadha aad ku riyootay haddii ay tahay gabar caato ah macnaheedu maxaa waaye waxa weeyaan waa faqri hami iyo faqri gaajo waaye hadday cayilan tahayne waxa weeyaan waa barwaaqo waaye haddii gabadha ay qaawan tahay gabar qaawan haddaad ku riyooto ganacsigaaga dhulka waa khasaaro waaye waad ku khasaaraysaa ganacsigaaga haddii aad ku riyooto iyo fadeexa ka dhalanayso magaranaysaa marka gabadha lagu riyoonaya hadba sida ay tahay quruxdeeda iyo lebiskeeda iyo carafteeda ayay khayr u tahay haddii gabadhu ay caraf badan tahay khayrkaaga waa badan yahay lebiskeeda hadduu fiican yahay khayrkaaga waa fiican wahaakada saas iyadana lagu macnaynaya laakiin haddii ay tahay gabar qaawan aan xijaab wadanin waa khayr dadka dhan ka dhexeeyo keliga aan kuu koobnayn oo mashhuur oo dadkao dhan ka dhexeeya ayuu noqonayaa waxaa kuu soo haray islaan waayeel ah ilaan dadku waxay u kala badan yihiin dhalinyaro iyo niman oo weyn iyo oday iyo gabar iyo cajuuzaha kuu soo hartay islaan cajuuza ah maama ah adduunyo waay hadday islaan cajuuzaha si usoo socotay guriga dalaq ee kugu soo dhahdo waa islaan cajuuzo ahoo islaan weyn ah adduunyadiiyaa kuu timid oo gurigaaga soo gashay adduunyadii naftirkeedii waayaba haddii aad ku riyooto qoftan oo duqdan waayeeshaah ee maamada haddii aad ku riyooto iyada oo inta isa soo qurxisay laakiin wejiga aanan asturaninoo wejiga uu u feedan yahay waa bishaaro degdeg ahoo adduunyada aad ku helayso waaye intaan aakhire la gaarin hadday weji macbuus iyadoo ah ay kuu timaadane sharaftaada kaa tegayso iyo waa ku sharaf beelaysaa meeshaas iyada ah iyada oo foolxun cajuusadan haddii ay kuu timaadane arrintii oo dhanaa kula laba gadoomayso oo si kalaad noqonaysaa adiga dhan iyada oo qaawan haddii ay kuu timaadane adduunyo fadeexo adduunyo kusoo gaarayso waaye fadeexo adduunyo oo kuu imaanayso waaye
sidoo kale isagana waa la mid ninkuna waa la mid isagana ninka cajuuska waxaan soo sheegnay laakiin horaan uga soo hadalnay isaga waxaan dhahnay waa khabiir iyo khibrad iyo cilmi iyo adab waaye. ilmaha yar ee sabiga ah ee saqiirka maxaa lagu macneeyaa aragtidiisa filmanaam? waxaa lagu macneeyaa cadow oo daciif ah oo kuu muujinaya inuu saaxiibku leeyahay laakiin cadowgaaga ah. ilmaha yariiska wax muu iska celin karaa? waa may. ilmo yar markaad aragto waa cadow, laakiin cadowgaasi waa cadow afkana kaaga muujinaya saaxiibtinimo, calooshana cadowtinimo kaaga muujinayo. ilmaha yarna saasaa lagu macneeyaa. waxaa la sheegaa nin baa hadda ka hor wuxuu u yimid ibn Sirin, markaasuu wuxuu ku yiri waxaan ku riyooday anigoo dhabta ku haysto ilmo yar oo qeylinayo. markaasuu wuxuu yiri ittaqi illaah walaa tadrib bilcuud, warniyow ilaahay ka cabso, ha ku garaacin ushaan cuudka aad wax ku garaacaysid jooji. waxaa kaloo la yiri qofkii wiil loo dhalaa, ilmo yar qofkii loo dhalaa oo islaantiisana markaasi uu ay leedahay ilmaha yarna wiil uu yahay, gabadha u dhalanayso. haddii aad ku riyooto islaantaada uur leh adiga iyada oo gabar kuu dhashayna oo ilmo ahne wiilaa kuu dhalanayo, marmarka qaarkoodna sideeda inay u furmato waa laga yaabaa. marka insha allah waxaan rajaynayaa intaasaan maanta kusoo koobeynaa. waxaan ka hadalnay duqa iyo duqda iyo dhalinyarada ragga iyo dumarka ah iyo caruurta ilmaha intaba waa ka hadalnay oo lagu riyoodo iyo macnahooda waxa uu yahay. marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad maankiina ay gashay, maskaxdiina ay gashay, aad ka wada faa'iidaystiin oo beri ka maalin haddii lagu weydiiyo ama adigaba aad ku riyooto riyooyinkan aan fasirayo inaad adiga naftaada aad isku fasiri karto oo aad fahantiin aan rajaynaya insha allahu tacaala. insha allahu tacaala waan soo badin doonaa barnaamijyada noocan oo kale, mar walbana waad nooga barateen inaan soo badino, waana soo badin doonaa, waadna ka faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala. intaynu kulmi doonno muuqaalkan muuqaalka xigo, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.